marxaladda dhalinyaranimadu waa waqtiga ugu qaalisan ee qofka soo mara waana waqtiga ay dhalinyaradu ku kala baxaan ka berrito wax noqonaya iyo ka fashilmayaba waa waqti qofku awood badan leeyahay haddii ay tahay mid jireed iyo haddii ay tahay mid maskaxeedba waa waqtiga loogu diyaar garoobo mustaqbalka dambe waa sida beer la beeranayo oo midhaheeda la guran doono waqti dambe dhalinyaranimadu waa waqtiga kaliya ee uu qofku ka dhabayn karo yool kasta oo uu nolosha ka leeyahay waana waqtiga ugu qaalisan dhammaan cumriga qofka bini'aadamka ah haddaba muuqaalkan kooban waxaan kugu soo gudbin doonaa 4 qalad oo waaweyn oo ay dhalinyaradu sameeyaan intay ku guda jiraan da'da 20-ka qaladka koobaad ka fogaanshaha waalidka inta aad waalidkaaga u dhawaato hadda ayay adigana caruurtaadu ku dhawaan doontaa mustaqbalka dhalinyaranimadu waa waqti uu qofka adduunku u cusub yahay qofka dhalinyarada ahina wuxuu jecel yahay in uu waqti la qaato asxaabtiisa waxaana iskaba yar waqtiga uu ag joogo waalidkiisa waxa aad u wanaagsan in qofka dhalinyarada ahi uu isku miisaamo waqtigiisa waqti la qaato asxaabtiisa waqtina la qaato waalidkiisa waqtina uu ku horumariyo naftiisa adduun iyo aakhiraba qaladka labaad ilaalin la'aanta caafimaadka caafimaadku waa waxa ugu qaalisan nolosha aadamaha qofku marka uu dhalinyarada yahay waxa ku jirta awood iyo tamar aad u badan sidaa darteed qofka dhalinyarada ahi wuxuu u haystaa in awoodda uu weligii haysanayo taasi waa sababta aanay dhalinyaro badani ugu ilaalin caafimaadkooda si wanaagsan una isticmaalaan balwadaha kala duwan sida qaadka iyo sigaarka qofka oo aan ilaalin caafimaadkiisa waqtiga dhalinyaranimadiisa waxa ka dhalatay in qofku hore u gaboobo oo uu lumiyo tamar badan oo isticmaali lahaa mustaqbalkiisa dambe qaladka saddexaad dayacidda waqtigu waa waxa ugu qaalisan ee uu haysto qofka bini'aadamka ahi waqtiga dhalinyaranimaduna waaba waqtiga ugu quruxda badan dhammaan nolosha qofka bini'aadamka ah haddaba qofka dayaca waqtiga dhalinyaranimadiisa wuxuu ka qoomameeyaa noloshiisa dambe oo dhan sababta oo ah waa waqtiga kaliya ee uu qofku ka dhabayn karo riyo kasta iyo hami kasta oo uu nolosha ka leeyahay una dhammaystiran yihiin dhammaan awoodaha dhinac walba haddii ay tahay caafimaadka xoogga maskax fresh ah waalid garab taagan iyo asxaab qaali ah oo garab taagan waxaa habboon in uu qofku ka faa'iideysto waqtiga dhalinyaranimadiisa si uu ugu aayo mustaqbalkiisa dambe qaladka afraad kaysasho la'aanta lacagta qofka dhalinyarada ahi wuxuu ku jiraa riyo iyo khiyaali iyo yididiilo dheer sawirasho mustaqbalka fog ah oo qurux badan sidaas daraaddeed kuma fikiro sidii uu lacag ama maal u kaydsan lahaa taasoo sababta in goor aan goor ahayn uu qofku baraarugo waxaa lagula talinayaa dhalinyarada ku jirta da'da 20-eeyada inay waqtigaas qaaliga ah kaydsi sameeyaan oo ay ka fogaadaan ku kharash garaynta lacagta waxyaabo maalayacni ah sida iibsashada gaari qaali ah iibsashada dhar qaali ah iibsashada mobile qaali ah iyo waxyaabaha la halmaala ku mahadsanid daawashada muuqaalkan